Sheikh Abdinaasir Xaaji Maxamed oo ah muftiga gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa maanta ka hadlay dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaaladaasi Laascaanood. Sheikh Abdinaasir ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaaladaasi Laascaanood inay ka diyaar garoobaan dilalka lala beegsanayo haldoorka bulshada ku dhaqan magaaladaasi Laascaanood. Waxa uu mas'uuliyadda dilalkani dusha ka saaray maamulka Somaliland oo uu sheegay in ciidankii ugu badnaa ay ka joogaan gobolka balse aysan muuqan inay wax ka qabtaan dilalka ka dhacaya magaalada iyo soonkaba noocna waa qabaa'il islaynaya ama aanaha la isu dilo ama iska hormaadba ha dhaco waa dil la yaqaano oo weli hadda wax la waayey oo la garan waayey garanmaayo muddada intaa leeg dadkii islaayey ee wax dhex mareen waana dadku waa ka xaajaysanayey waa lagu kala baxayey dilalkan qorshaysan wuxuu yahay ee qofka inta la dilo aan la helin cidda wax dishay oo cid loo qabanayo cid loo maxkamadaynayo cid loo qisaasayo aanay jirin goormay bilaabatay yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya anu waxaan qabaa mas-uuliyadda maamulka Somaliland baa leh xilka iyagu saaran yahay kiiska dusha ayuu ka saaran yahay 2007 halkan iyagu soo galeen taqriiban dilka qorshaysan wuxuu bilowday 2010 buu bilowday maalintii suxufi la dilay habeenkii tafsiirku dhagaysanayay hortayda soo fadhiya marka hortayda fadhiya telefoon ku soo dhacay telefoon cod weyn wali ma ilaa wax xusuustaan kitaabana akhriyo sanqadhii markaas aan eegay ninka telefoon ku soo dhacay markaasna naxado telefoonku uu qabtay markuu albaabka ka baxayna banaanka lagu dilay sunni ma aan ka soo baxay baa la yiri suxuf baa la dilay oo sawirka fadhiyay ma suxuf goor ma la dilay salaada ku xigay hebelaa ku xigay soo taxunde ilaa hadda habeen hore Abdirasaaq uu ugu dambeeyay hadda inta la hubno dilkooda boqolaal bay gaarayaan dadka noocaas maamulka dawladda ay meesha ka dhisan dawlad xilkeedu muxuu yahay dawladda ay maxaa tahay maxaad qabataa maxaa lagu eegmaday maxaad ka shaqaysaa dawladii waxay qabataa oo laga doonayaa bulshada meesha degan fardi kasta qof kasta oo mujtamaca ka mid ah waa inuu nabad helaa naftiisa waa in la badbaadiyo ay badbaadin kartaa dawladdu maalkiisa waa in la badbaadin kartaa oo xoolo saarin cirdigiisa waa in lagu xadgudbin waa daruuriyaadka islaamku uu qabo si caalamiin adduunka oo dhan waa wax la isku waafaqsan in la ilaaliyo qofkan naftiisa iyo jiritaankiisa iyo xoolihiisa in loo ilaaliyo baa dawlad ku tahay dilalka qorshaysan ee loo geysanaya bulshada gobolka Sool ayaa inta badan la helin cidda ka dambaysa waxayna shaki weyn ka qabaan bulshada gobolkaasi ku dhaqan waa gobolka Sool inay arrimahaasi ku lug leeyihiin maamulka Somaliland sababa ay ka mid yihiin maamulka aan marna xusin cidda lagu tuhmi karo dilalkan muddada dheer socday iyo fashilka hay'adaha ammaanka Somaliland iyo aamuska mas'uuliyiinta ugu sarreysa Somaliland inta badan Somaliland ayaa ka nabad gashay dilalka iyo qaraxyada ka jira dhulka Soomaalidu ay degto marka laga reebo magaalada Laascaanood oo si gaar ah lagu baltilmaameedsado Yusuf Saxardiid Yusuf VOS TV Muqdisho.